بيريري أمبركنيا دورو أمبركنيا ديري ده صون حسوستان مقرأة لكن مش هكون مقلي وولي قرين لي كسر نوايا أصحاب يوتيوب شانل كيكا نا وأنا عبد الرزاق تدين قريني هم وأنا جو إدريس لا كاركود من إدريس لا هي كاركود إدريس ما أنت فيديو إنه يا مقرأة الفيديو إنه حويان مدرك سنة أنا مقرنا الصواب تنسيق أداء مقرنا سام مدحوينها بيحي أو سبلان لوسو دوي هرقيسة هرتنا دلا عرقتين موياني هي هرقيسة سو دوي تقول في عين والله إذا ولي مان أركين تتصيري هرقيسة وكلا ودو بيدين بمالي وابو محل هذا بيكي كيم دي إنكريس كارسما ولا سو دوي معناها سو دوي وين بهاي مصبيحنا سيو كالو سو دوي معناها يجو سو دوي تقول في عين هذا اللي بعمل ريح هرقيسة سو دوي ودا اوكي ريب معنا في الصومالي مقراسة بركة أبل حاول تعاون السيرو سو دوي on cable TV kuwani waa kumanaan ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee Soomaaliland caasimadda u ah kuwaasi oo taagnaa soo videoga waan hubaatay imika 8 gabdhood ama 9 gabdhood ama 12 ama 20 ama 30 gabdhood waxa ku jira imika inay daawanayaan xaga qaban halka ya walaahu waxa ku jira ama tan ugu soo horeysay master dhaxna baa noqotay kuwan meesha ku dhex jira salaam ya biixi cabdi iyo wafdiga uu hogaaminayo ee afartii maalmood ee la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Jabuuti ee xarunta waddankaasi Jabuuti halkaasi oo ay kaga qayb galayeen wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya diyaargarowga soo dhaweynta madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa ayaa laga dareemayay magaalada Hargeysa ilaa xalay markii uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa waxa uu isagoo saaran gaari dusha ka furan uu salaan la dhexmaray shacabka reer Hargeysa ee wadooyinka taxnaa intaasi kadib madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wafdii ballaadhneed ee uu hogaaminayay ee shirka waddanka Jabuuti kaga qayb galay isla markaasina maalmihii la soo dhaafay halkaas ku sugnaa waxa loo soo galbiyay aqalka looga arrimiyo Soomaaliland madaxtooyada oo hadda halkan aan ku suganahay waxa goobtan ka dhacday munaasabad kooban oo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi wafdigiisa lagu soo dhaweynayay isla markiiba madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa hadalka lagu soo dhaweeyay waxaana uu diray baaqiyo kala duwan isagoo ka hadlay wada hadaladii Soomaaliland iyo Soomaaliya dalka Jabuuti uga qabsoomay shacabka reer Soomaaliland ayuu u sheegay inay isku duubni muujiyaan sidoo kale madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa uu baaq u diray beesha caalamka isagoo ugu baaqay inaanay suuragal ahayn Soomaaliland marnaba ay Soomaaliya kala hadasho deeqaha iyo sidoo kale waxyaabaha bini'aadantinimada la xiriira ee Soomaaliya la soo mariyo shirkani wuxuu kaga duwanaa kuwii hore waxaan nasiib u yeelanay in la helo fagaare adduunka dawladii ugu xoog weynaa shiray iyagu soo qaban qaadiyeen wadaan oo dawladda Mareykanka ugu horeyso oo ay ka soo qayb galiyeen Yurub EU oo dhan dawladaha Yurub xafiiskii matalayay Afrika kii matalayay African Union dawlado kale oo madaxood ay ka joogeen iyagoo madax banaan cid ka wakiilihii loona xil saaray dawladda Jabuuti inay marti geliso shirka markii la dooday ee cudurradooda soo dhigtay madaxweynayaashii joogay iyo safiiradii matalayay dawladaha oo ka Mareykanka ugu xoog roonaa waxa loo go'aamiyay in la yiraahdo arrintu waa culusta markii horreysay in la garabsado arrintu waa culusta hadday culus tahayna oodan camad sida u kala sarreeyaan baa loo guraa waxaanu wadiiyay xaggeen ka bilowna waxaanu ku nidhi dee waxaanu bilaabaynaa wixii hore loogu heshiiyey horta hala fulin dee markaasaa la bilaabi doona haddaan tii horeba la fulin haba yaraatay haba weynaatay haddaan ku hore la fulinayn maxaa tuduma laga bilaaba dadka nala doodayay runtii may ahayn dad fahamsan waaqiciga jira masdaro waxay ahayd dadkan aan murmayna waxa jira ee waaqiciga ah dad aad uga dhagsan ma yahay tii dhaqaalaha oo ka dhagsantiin oo soo taageen inay meesh joogo wardi anaga dawladii dhaxal anaga caalamka la midna idin kala ma ictiraafsana oo kulli cidii ku dooratay iyo cid aad u tariso oo ula tag anaga wadina anaga horta maaligu baa wariya maanta anigu Muuse Biixi ka leen gaar kor maaligu baa mise dadkoo dhan way ka helaan markii madaxweynayaashu iska hadlayaan wariyaha anaga meesha maamulada
dadka marmushada waxaa u tag maaliya sayleeda ya ana sayleeda soma adii intan ku joogto buu ku miisaan Soomaaliya dhib ay miisaan ariya wada ku miisaan u tagtay ashi keenay markay bixinayaan qodbada u hadlaa baasala macna waa fani u yar fiirsan ka muddo biirayri تعارض كسر شيء تاسع أو أي سبب وين هذا قرار واحد بحساب ملاك جورة أنا والصومالي وطن بان وحسيننا حديد ده اللي جسنا حنا الصومالي وطن صومالي اللي هو رأنا نسكت سوا حسين حديد ده شيء سوا صعون مس قرار يعني ساينا وحنا كمان حمر ما هو هذا وين ساينا وين إسخلاف صنع وين كلفقنا عالم كأيه اللي بدي نقول شيء إنه هالكلام كله تاجرنا وقد يدين عالم كجارسيننا waayo caalamka dadka isqabto uu kala saara ama uu hadal baa uu kala saara ama maxkamad marka caalamka waxaan u sheegnay haddana halkaan uga sheegaya idinkaa Soomaaliya heshiiye ma soconayso wala haddana ma soconayso waayo beesha caalamka oo Mareykanka ugu tuumaya waxaan u sheegaynaa laba dawladood istagay baan hore iftaaraya dawladdu waxa laga gudbiyay 19 laba dawlad baa kala dhigtay laba system baan kala qaaday waxaad ictiraafteen oo ictiraafkii naga dhaxeeyay siisay oo dhaqaale naga dhaxeeyay siisay oo barsoolkii naga dhaxeeyay siisay qolada Soomaaliya tii marka anaga cidaan naga tagay anagu meeyno qola aad inta wada siisay inaanu la hadalo ama u bariyatayno ilaa wixii naga dhaxeeyay dhex noqoto ha musabix macnaha wuxuu jiidan yahay in la yiraahdo Somaliland ayaa dhaqaale ama wax looga keenay Soomaaliya wuxuu rabaa in marka wax la bixinayo laba kala wadan la yiraahdo oo la yiraahdo Soomaaliya inta lagu geeyo Soomaaliya intan taasaan wuxuu fahmiyay laakiin Soomaaliya caalamku ka sugaysa waxa ka mudan tahay Soomaaliya mid baan leh qaran baynuna صدق سنة أيام السؤال قرننا الاسم إنه دولة الإسلام صدق سنة كهرية دجال بين كتير حبضه أو دولسمه أو دواتره أو أفله أو حرق له أو مر له إيران ما أنت مسكون داري هذول كي لا يسكون داري هذا العدل الداري إنه يوم يتصل أو إنه نربي وحب وقاته ولماذا يشنتي سؤالات دونه وحياة الله هاي مركو هذا العدل هذول اللي بدو يحرم مظاهرات كذا عاي يجا جوه هذا كتاعنا oo 3 ku dhaawacmay 3 ku dhimatay 300 loo xiray oo dadkii martida u yimid 400 wafti ahaa ay ka yaabeen dabkeedu maalintii gabdhaha ilaa maanta aan taagana inkastoo shirka wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya afartii maalmood ee la soo dhaafay Djibouti uga socdiyaan ay ka soo bixin qodobo midho ilaahay ku dhashay shacabka Somaliland iyadoona macnaha wali ictiraaf siin oo macnaha shirkii imika dhacay waxba lagu soo heshiintay ayay sidaa u soo dhaweynayaan madaxdoodii ka waran hadii ictiraaf la siiyo macal wala soo bixilaa mana waxa guriga ku jiro dibadii milla hadii ictiraaf la siiyo Somaliland ergasi bilaay ku dhashay inta dibadda joogtay magaba waana shir uu ka soo noqday madaxweynuhu hadii ictiraaf la siiyo baa in ay soo wada baxayaan maalinta shaqo ma jirtaba shaqo iyo waxaasi ma jirtaan orada maalinta macal cuntada bilaash dala haddana shacabka reer Somaliland waxa ay si weyn u soo dhaweeyeen khudbadii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ka jeediyay furitaanka shirkaasi taasi oo ay u arkayeen inay tahay fursad muhiim ah oo Somaliland ay u heshay fagaare caalami ah ay ka sharaxdo qadiyadeeda sagal dalda Axmed Honkey Bal TV aqalka Somaliland looga arrimiyo ee Hargeysa sagal dalda Axmed Honkey Bal TV aqalka Somaliland looga arrimiyo ee Hargeysa sagal dalda Axmed Honkey aadana weeyay ma noqon karnaa ha marka weerkiisii ma umaleeyaa Soomaa la Musabbixi wala soo dhaweeyay takrana anu reer Somaliland soo dhaweyn toona diistay meeshii doontaan noqoto ma arkin wadi dad soo dhaweeyay dadka bagarateen marka aad ugu maasan daawashay video daawateen fadlan ku soo YouTube channel subscribe saar video wana like saar وإنه في فيديو دبته تقول هيدا خير بمن رجنيا peace